ku xirnow som crypto kana faa'iideyso sida loo iibiyo ama la isaga iibiyo coinanka ugu muhiimsan. Assalamu alaikum. Insha Allah waxaan la wadaagi doonaa macluumaad yar oo aan u arko faa'iido inay noo tahay especially cryptocurrency-ga. Microsoft oo launch gareynaysa decentralized identity tools on Bitcoin blockchain. Yani waxay isticmaalayaan teknolojiyada Bitcoin iyaga oo soo saarayo qaab qofka dokumentigiisa yani aynu ku adkaanayn inuu isticmaalo blockchain-ka iyagoo isticmaala ama ID ahaan ama face wejigoo kaleento ama ishoo kaleento iyagoo isticmaalaya way dhammeeyeen marka shaqada hadda way dhammeeyeen marka waxaa dhiman keliya inay barnaamijkii ay soo saaraan markaas macluumaadka waa sii akhri kartiin waxaa kaloo maasha Allah iyadana cusub Binance inay saacad ka hor soo geliyeen 6 saacadood gudahood in aan lagala bixi karin wax lacag ah waxaana lagu ridi karin trading aan la sameyn karin wax walba oo Binance suspended 6 saacadood gudahood marka insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay hagaajiyaan marka waxaan kaloo eegaynaa suuqa maasha Allah suuqa waa arkaysiin subaxan wax oo dhan wada green ama cagaar Bitcoin waa arkaysiin 8,000 ayuu marayaa Ethereum waa kaasa Litecoin 91 Bitcoin Cash-na waa kaas maasha Allah Bitcoin Cash ayaa maaragtay sida leeyahay Bitcoin Cash ayaa aad weekend kaliya loo maleynaa inuu 400 kor u dhaafo ilaa 500 oo tago weekend marka insha Allah waa arkaynaa say wax noqdaan kuwa kacay waxaa ka mid ah Rebel iyo kan weli ma arkin Hello IOTA iyo Pi waa kaasa maasha Allah iyo isna $6 waaye waa kaasa wixii kale oo soo siyaadana waa la soo socodsiin doonaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inta kalena waxaa ii sheegayaa Bitcoin mar hadduu 10,000 dhaafo waa khalaas mar hadduu 10,000 dhaafo waa khalaas ku xirnow som crypto kana faa'iideyso sida loo iibiyo ama la isaga iibiyo coinanka ugu muhiimsan.